بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أصحابتي إذا قيمة إيقايها فرها بضن له أكتي إذا وحوين كجوجة وحان إذن الله يهاي مركلة يكولنتي وناكسن وأولاشين شكري دقن وإذين ودا برنامج عصب. أصحابي برنامج كان عصب وحان ربائنا إذين شاكير معها برنامج آدو سيدار وحان برنامج أنا شاكير aan qac idinkaga siiyo insha Allah ta'ala idin la wadaago waa qisad aba oo dhacday inta aan sheekada guda gelin marka hore waxaan rabaa inaan idinkaga mahad celiyo daawashadiina quruxda badan mar walba aad iga daawataan bartan aan YouTube-ka ku leeyahay Shukri Musa Talent Channel saaxiibayaal intiina hore ee nala joogtay aad iyo aad aan idinkugu mahad celinayaa sida quruxda badan ee ila socotaan haddii ilaahay idmana waa rajaynayaa intaan iyo in ka sii fiican iyo in ka badan waqti dheer inaan isla qaadano haddii ilaahay Allah awoodda sare leh uu ogolaado. waxa kaloo rabaa inaan soo dhaweeyo qoomka kaleeto ama dadka kaleeto oo walaalaha ah ee Soomaalida ah ee dib nooga soo biiri doona haddii ilaahay yiraahdo. idinkana waxaan idin leeyahay walaalayaal soo dhawaada ku soo dhawaada qalbi idin jecel iyo walaashiin oo aad halkan ka wada jaan qaadi doontaan. waxaa haddii ilaahay yiraahdo oo igu soo biirtaan oo aad fiidiyoyadayda aragtaan waxaan idinka codsanayaa inaad subscribe noo saartaan gambaleelkana furataan oo all ka dhigataan si wax walba oo bartaan soo geliyo aad markiiba idinkugu soo dhaco oo aan isula jaan qaadnood ila socotaan. like-ta noo saara dhiirigelinta commentigana waxaanu ka qaadnaa dhiirigelin sidii aad wax u aragtaan fadlan nuula soo wadaaga. haddaad si xun u aragtaan xataa wax ka bedel waa soo dhihi kartiin ra'yigiinu waa muhiim mar walba ra'yi waa nagu darsan kartaan. intaas haddaan uga gudbo barnaamijka aan rabo inaan sheekada yar aan rabo inaan idinkaga sheekeeyo walaalayaal aniga title-keeda waxaan ka dhigay waxaa igu soo dhacday sheeko mar aan ciyaal ahaa buugaag sawiran sheekooyin sawiran aan ku fiirsan jiro oo Soomaaliya. waxaa la yiraahdaa sheekada waxaa anigu u bixiyay nin ugaarsanayo oo isna la ugaarsanayo nin ugaarsanaya oo isna la ugaarsanayo. sheekadaasi waxay ka dhacday waqooyiga Amerika ma rabo inaan si kala tilmaamo waqooyiga Amerika halka ay ka ahayd. waxaa jiray nin Soomaaliyeed wiil Soomaaliyeed iyo waxaas qabay gabar Soomaaliyeed. waxay ahaayeen reer weyn oo meesha wada tagay oo iyagoo isqaba tagay oo caruur leh oo ma sha Allah ah. reerkaasi hore isu qabeen dhib iyo dheef boo soo wadaageen. sida aan ognahay noloshu marba marxalad ay gashaa marba xaalad ayay ku timaadaa. dhib iyo dheefba waa ay wadaageen. dhib iyo dheef waa wadaageen markaan leeyahay qoysasku markay dhisan yihiin kuma wada dhisna nolol waafi ah iyo dhaqaale dadku haysto kuma wada dhisna laakiin waxay ku dhisan yihiin isfaham. kulama maaragtay qofku uu xataa waxba haysanin haddaa isfahamsantii noloshu way soconaysaa. ciddii shaqayn kartaa shaqaynaysa ciddii reerkan kusoo saa'idin kartaa kusoo saa'idinaysa. haddii mabdi inuu yahay ilmaha aan wada korsanno aan isla dhaqanno maaragtay maasha Allah tabaaraka Allah waayo qoysaska Soomaalidana saasay u wada badan yihiin. dhaqaale ay haystaan kuma wada joogaan laakiin waxay ku wada joogaan sabar isu dhimrin wax isu ogaasho isdixgelin isqiimayn iyo adkaysi runtii aad u fara badan oo Soomaalida lab iyo dhadigba ay wada adkaystaan. walow maaragtay dhadigu uu adkaysigu sii badan yahay oo qofku markuu hooyo yahay hooyo ay kasii uur nugushahay aabaha. reerkaas dhisan ee qoyskaas u dhisan halkaas tegay ee ku wada noolaa ee caruurta lahaa waxay xaaladba mar soo maraan. markii dambe odaygu wuxuu noqday trackle waa la wada yaqaanaa North America traagu shaqooyinka ugu fiican ku jira oo rag u qabto. inkastoo gabar Soomaaliyeed oo xataa track wadaysa aan arkaayo mar social media aan ku arkaaye kartida iyo fanaanta ay gabdhaheenu leeyihiinna mar walba waa suuragal inay waxa rag ku qabanayaan xataa ay awoodaan inay qabtaan. balse ragga ayaa majority-ga maxay ahaday track layaasha ah
traagaas dhibna waa leeyahay dheefna waa leeyahay hadda qof bini aadana oo dariiq saaran oo baabuur fadhiyo shufeer la iga dheh oo driver ah oo maxay ahayd baabuur 24 saac xaggaas marba meel u socdo oo hadduu Canada joogana Mareykan u gudbaayo ama Canada dhexdeeda ka shaqeynayo hadduu Mareykan joogana ilaa ay Canada imaanayo caalamkoo dhan saas u socda khaasatan North America waa la isu gudbaa oo traagladu meel walba ay tagtaa dhibkiisa ma yara ma aha shaqo sahlan laakiin waa shaqo lagu xisaabtamo oo income-ka ka yimaada ama dhaqaalaha ka yimaada hatta sheekooyin fara badan xataa Soomaalidu ay ka soo sameysay jilayaasha ah ninkii traag loo noqday traag ayuu wadaayay halkaasuu reerkiisii iyo caruurtiisii iyo naftiisiiba uu ka biilanayay muddo markuu ninkaasi traagaas ku shaqeynayo wiilkaas Soomaaliyeeda aabaha ah muddo uu traaga ku shaqeynayo traagu marba wuxuu tagaa maxay ahayd gobol marba gobol uu tagaa hadduu doono wuxuu u gudbaa dal kale sidaas loo socday wuxuuna nin raga ay yihiin oo qof dumar oo caruurta iyo reerka kaliya ka fikraysa inay loo fikradiisu ay badan yihiin anteenooyin badan u taagan yihiin saddex ku badsan kartaa si islaamka lagu heli kartaa wax walba maaragtay ay ka suura galaan على الأمور مركي وجود بيسي ويلكي أما نينكي أباها أها الريركاس ودسنا تراك جودي وحو برتاي قبر كله أو صوماليات قبر كله صوماليات وبرتاي إسكودل أي جوجان لكن وحي كله جوجان لما مقالة ده حاس كيسي عرورتي سودجيهين إيه مقالة ده قبر دان وكبرتاي لبي كليهن قبر دي بو برتاي وهشيين كل يوم بيكون هشيين النلاشة وهشيس وحين بيكون هشيين أخيرا إني نلاشة إسكوتر سدان وإسكور سدان قبل عن ضمبه كما أوصن قرنين إنه حاس ليه وأكتهاي نكر إنه حاس ليه حاس كيس مقالة إذا جنت هاي محي إذا قبل إذا جنت هاي مقالة إذا كيس إذا جنت هاي ويتقانا يعني عرور هاي سوا أكتهاي ما يبي أسجع أجشيكي لكن gabadha kale uu ninku qabay ee caruurta haysay kaligeed markii hore uu qabay kama war hayso gabadhan kale isma yaqaanaan mana ogaba ninkeedu inuu na kala shaqo ku leeyahay ama uu maxay ahaday la guursaday ma oga waa in rag iyo xaaladiisa ninkii gabadhii buu guursaday tii dambe ayuu guursaday meesha joogto ku guursaday cagaheedu dhulka ka qaado waa nin dhaqaale haysta oo traaga asaga leh oo baabuurka traaga asaga leeyahay oo ku shaqeysta oo kaaliska arga wuxuu sameeyay gabadha cagaheedo dhulka ka qaaday gurigii ay deganeed buu kiradiisa la wareegay maadaama ay xaaskiisa noqotay mas'uuliyadeedii asaga qaaday xaq bay ugu leedahay gurigii buu maxaa la dhihi jiray ka bixiyay kiradii wuxuu u qoray biilkaasuu siinayay ma sha Allah tabarakallah nolol aan caadi ahayn ayay gabadhi gashay saas markay noqotay oo nolol aan caadi ahayn ay gashay uu biilinaayo uu kirada ka bixinaayo oo hadda ay nolol wadaag noqdeen waa gabar shalayna aan maxay ahayd oday lahayn haddana maantana oday leh oo xaas ah sidaas daraaddeed isbeddel waa imaanaya moogtahay gabadhii isbeddel muuqda ayaa ku dhacay nolosheeda oo dhinaca horumarka ah lacagiina heli jirnay heshay hadda nin u adeegayo u shaqaynayo mas'uuliyadeedii qaaday heshay lama mid noqonayso maaragtay shalay markay singalka ahayd kaligeed meesha deganeed gabadhii bil dhalatay oo dhamaatay iyo madaxeedii majo u rogay uu koolkoolinta ka badiyay waxaan maqli jiraa ama xiisa maal ama xalaal adooga xiisa maal ama xalaal adooga xalaal aabaha macnaha xiisii xilligii xiisahay gabadhii asaga isugu horeysay waxaan ku iri madaxeedu majo u rogay cagaho dhulka uga qaaday wax walbuu siiyey biil iyo wax ka saa'ida iyo kiradii uu la wareegay adiga gabadhii saas u koolkooliyay nolol ayna hore u haysanin isu bogtay oo faraxday oo maasha Allah noqotay gabadhii hadda waa nin raga iyo xaaladiisa 30 maalmood gabadha kale wuxuu uga maqan yahay asagoo inuu shaqo jiro la track la waayo waa shaqeynaya marmar uu shaqada ka soo dagaa uu yimaada uu wax yar jooga caruurta la habeen iyo maalin amal hoydaa waa noqdaa hadana waxay u fahamsan tahay iyadu inuu shaqo u jiro isaguna wuxuu u sheegaa inuu shaqadii jiro asagoon xataa shaqeynaynin buu gabadhan la joogay bisha
islaantaasna wuxuu u jiraa shaqo u jiraa wuxuu sameeyey marka gabadhan mudduu waqtiguu la qaatay bil iyo xoogoo ayuu cageeda dhulka ka gooyey uu samawaadka iyo ardada meel u dhexaysa marsiiye intuu xiisaynayay ma fahamta bishii iyo xoogoogii kadib bisha macnaha joogto uma wada joogin oo shaqada uu tagay uu soo laabanay markuu shaqada ka yimaadaba ayaduu ag fariisanaya waa noqonaya waa ka imaanaya gabadhi kalena wuxuu u sheekanaya baawur halkaas ku jabay hebaloobaa ka noqday waa ku daahay ma imaan kari toddobaadkan ma imaan kari kan xiga ma imaan kari waa idin imaan doonaa ahey saasuu ku madadaalinaya gabadhan markuu waqti badan la qaatay bil iyo xoogaa ah uu shaqadii iyo iyada shaqadii iyo iyada shaqadii iyo iyadoo shaqada weliba xataa intuu iska soo gaabin karo uu iska soo gaabinayay maadaama ay gabar ku cusub guriga u joogto waa isbedelay maba soo raaginba bilaa ma qaadan sanado iska daawarkooda waa isbedelay xoogoo xiisihii yaraaye wadwaday markuu ka dhacay ayaa xunbe iyo xiisaba waa dhacaane uu isbedelay ninkii maalinka dambe wuxuu yidhi reerkeenaan gawar doono waaye oo waqti dheeraan ka maqanahay markaan fasaxaan markaan hadda aan rarkaan soo gudiyno reerka aada waayo haye cid waxbaba ka qabtaba way ogtahay ninku inuu xaasii caruur leeyahay jafow yiri ciddiisiiou aaday waa soo gadoomay shaqadiisiiou ku noqday gabadhi dambe waaba hadduu agteeda dambe soo istaago bilya cabaaru nolol la qaata soo maaha waaba hadduu agteeda dambe soo istaago inuu u yimaadana waa ka caagay oo waa diida teleefon inuu ka qabtana waa ka caagay berihii hore teleefonku ka qaqabanaya biloobaa kana apologizekii yaraaye macnagta marmarsiyadii gabadhii hore lagu haayay bisha iyo xoogooga ayaa iyadana markeed u bilaabatay baabuurka halkaas beelay iyo biloobaa kana iyo ma soo bixi kari iyo anaa ku imaan doona iyo wixii ka dambeeyana teleefonkaba kaalaha ka qabto gam afkiisoo xirto teleefonkii uu ka qabo waaye shaqadiisa hadduu fasax helo islaantiisii iyo ciyaalkiisii ayuu aaday bil iyo washii kale ayaa gabadhi waxay saas ku soo dhaaftay ayadoo ninkeedii wax warah iyo wacaal ah aan ka haynin kiradii uu kala hore ka bixina aan ka bixinin biilkii uu siin jirin xataa hadduu biilkeeda usoo tuuro una marsiyoodo waa iska sugi lahayd moogtahay biilna aan biilin kirana aan ka bixin garoorkaaga meeqa waaye aan dhihin meelay joogto aan soo istaagin intii dambana aan teleefonada ka qaban talaa ku yeeriyo nin libaax ku yeeryeeriyo madax ku yoolyoole aan maqli jiray gabadhii libaaxa ku yeeri talaa ku caddaatay waxay istiriyaa war shala maantaana badinka is aroosteen is aragteene dhaqaalena waa haysto waxaad aragto lacag uu kugu farraqeen inuu biilkina kaa goosto kiradii uu ku baray oo maaragta kaa bixiyena uu shib la yidhahdo afkiisina uu sii reebto oo aamuso oonu kula hadlin ma dhici karta istira qadar 2 biloodaa ka soo wareegtay gabadhii ninkii intuu meermeeriskii hore iyo aamusnaantii dambeba uu ku waday waa gabadhii dambe oo gadaal noloshiisu ka soo birta oo isagu lugiisa ku doonto intuu barta guursaday waxay samaysay shibay tiri walaalayaal raalli ahaada baradaashan qarray wax maqlaysaan guriga waa la joogaa waana la buuqayaa dadaa igula noole marka waxay samaysay gabadhii shibay tiri waxa waaye taa adiga ku noola iyadu kuguma noola waxbay xooraansatay ayadoo hore u ogeyd meesha uu degan yahay xaafadda uu ka degan yahay wax hore u ogeyd dad eeriyadaas deganay u timiday waxbay tilmaansatay waxaa markii dambe loo tilmaamay eeriyadii gurigii uu ku noolaa ee gabadha iyo xaaska iyo carruurtii hore ay u deganaayeen ayaa loo tilmaamay shibay tiri cishadii dambe waa xilli samar ah gelinkii dambe macnaha xagaaga xilliga xagaaga oo qorraxdu jirto ilmuhu bannaanka isaga soo babaxaan lagu ciyaaro ayadoo gabadhi ninkii carruurtiisii ay bannaanka ku ciyaarayso gurigiisii hore macnaha gabadhii hore koowaad ee carruurta lahayd guriga bannaanka ku ciyaaraysa bay iyadii tilmaantii soo raacday way timiday markay timiday carruurtiio iyo carruur kaloo la ciyaarayso xaafadda ah bay waxay ku tiri hebel iyo heblaayo gurigooda yaan rabay waa halkee markaasaa gurigii albaabkiisayba taagantaha meelba uma jiro waa u muuqdaa waa gurigaanaa la yiri ciyaalkiiaba tilmaamay waa siday u socotay bay gurigii qaraacday gabadhiyaa ka furtay waa gashay gudahay usoo gashay xilli salaadeedaa lagu jiraa marka alla abaayo salaadaa iga tegaysa
xaafadan baaban dad maxay ahayd dad degan gabdho degan maxay ahayd gabdha halkan la igu soo tilmaamaan raadinaya yaan soo aaday gabdhihiina gabar baan helay waana kasoo tegay gurigeeda waxaan rabay inaan magaalada aado waqti xunaan kasoo tegay hadda haddaan magaalada sii galana salaada iga tegaysa fadlan caruurtan soomaalida meeshaan ku dhedheelayaan arkay markaasaan iri gurigiina waa kana idhaahdeene maxay ahayday meelan ku tukada abaay maysiin kartaa bay tiri waana gabar soomaaliyeed soo maaha ها باي سوكل كده سوكش سلبي ماشي أنا روح لقى صلاة وإيجا تكتب باي وإيجا تجي سوا قليل إيجا تهاي وأسوي سنة هالكان كنت كبيتري تفرق يقولك تسلي بيتري سجايد ودك تتر هالكان ولا شيء يقول تكو أنا وأسوي سنة ياي كمان عرفت مسخوش هيك شو يسوي كش سيدي أسع تبينك تقولك جيف كش تقولك أنت هالكان وافر قولك ساس أفرطي مسوا ولا جيفه واقع شيء أنت قبل يقول جلهيت كجرت مسخوش qolkii bay u gashay ninkii bay cagaha bash iyo bash ka siisay toos aabbaha cuni hambariir hadduu soo yiri waaba qofkii waa ka naxay oo isiri talo maryoonaysa halkan fiir maxaa halkan maxaa shaqsan doonta anaa ku imanay anaa ku sheegi lahaa wixii u dhacay maxaa tagsan haba wariya anigu kuma sheegin bay tiri waxaan kaa rabaa wax bani aadan aad tahayna ma jirto wax didimaha agtaada igu ka dambaysa wax rajaho aan kaa leeyahayna ma jirto waxaad samaynaysaa fadlan haddaad rabta reerkani inuu kuu dhisnaado iiga daba imow gurigaygan kugu sugayaa iigu imow ma garata kadibna waxaad ii imanaysaa bishii aad iga maqnayd adigoo kiradii guriga iyo biilkaygii iyo wax allaale iyo wixii aad hore ii siisay ii sidaa tan labaad adigoo diyaar u ah inaad madaxayga siiso wax danahoon kaa leeyahay oo dambe ma jirto haddaad noocaanti gabadhan maskiinada caruurta haysa anigu caruur kuuma hayo inaan gurigeeda ka dumiyo ma rabo waxaad samaynaysaa waad ii imaanaysaa adoo intaas afka ku sidaad ii imaanaysaa biilkaygii iyo kiradayda adoo afka ku sidaad ii imaanaysaa madaxaygina waad isiinaysaa waad i furaysaa markaad i furtana 3 bilood ciddada ku jiro ilaahay waajibka kaaga dhigay inaan guriga meesha aan degaayo guriga aan degaayna adigu aad maxay i dejiso amaadan gurigaygii iga bixinin biilkana aan adigu kugu leeyahoon adigu kuu xayiranaya 3 bilood ciddadan lacagtii 3 bilood ciddadan gacantaad kusoo qabanaysaa bay tiri iyo kiradii 3 bilood waan ciddadaada ku jiro 4 bilood adoo ii wada iiga daba imoo gurigayga haddaad rabta gurigaan inuu kuu dhisnaado maaha sawma haddaan bamba kugu tuuraya وابريو تموحوري ولا ما ولا وابريو إذن هذا الكو أبوب سيسو هذا أنا هذا الكديرين أيه دقيقة أيه كتري انتاس هذا نقول لك وين نقول لك كأركي سابتر وين بحضر كذا سلي جديد بقطع الصلاة الله أكبر يدو جدي بكلهد صلاة هذا مراد كما أيه جدي كلهد نين كان سيدكو أركلهد وأنا يسوح ورانستي وإذن كلا صوت شيء كرافي ويسوح ورانستي إنه شغلي كيم دو قول جوجو ومهبيننا ببريسي حافتيسا معناها مال أو حافتيسا ديجان كي يدقيهن أكتو دبريسي قبلها أوكي أنت هسمر كي تري باقبالي كلا مسخوشة كصباح ذا أيضا صلاة أيضا حران وصلاة تكنيسي قبالي كلا صباح ذا كذا شيء ذي كنت كتير لقطة أيضا سجايا هم كاسي كنت كتير ورنا كما هيسو سبب تقولي هذا لو يمت إنين كيرو قبل عن قبي إني أفعلها سقطي مذي إني هذا مراد كذي جرتي منك عنانتي لهذا شيء تري وريا هالك صدق أفكار كوسيد وحاسبني مو ور أي كهيسو مسكينة ده نقول لو يمت هبا يراتي مجرته تنم مراد كذي هو شيء أوبريشن كذي وافشته ما قرأت هل كذي كنت كتوى اسمع ساعي ولا كيو نحسن أو قرع عن قرق القلق لا دحفر ليها أي قبل اسمع ساعي وما سنت خير الله كسي أجري حسنا صلاة دي واسكر مع السلامة ولا شيء خير بدن هاي برشوا نكسر مقعاهب لا أنا مقعاهب لي هي ولا شيء عافمات بدن هي قبلنا كسر حريصات ووقت تنبه هي وصعتي قبل صومالي عادي وقرق نقول صوماليات وصل لي حتى يسكتك واتكتي habeenkaasi maalin bay ahayd gelin dambe casri meelahaas wuu iska joogay habeenkii waa bariyay maalintii dambe soo caga dhaboonaya gabadhii ugu tagay intuu baxay baabuurka waa baxay habeenkaas uu baxay uu taraaga aaday uu shaqadii aaday wuu baxay u socdo iyadii oo maray na inkaar Allah ku gurida gurigayga maxaa ka soo doonta maxay ahayd wixii tir warka waa xiran yahay warkaas
adna dhib kulama rabo miskiintaas carruurta haysatana anigu balanbal iyo hoog iyo fikir iyo qaracan lama rabo waxaad yeelaysaa 4 bilood ma ii wadaa 3 bilood oo ciddada lacagtii aan ciddada uga soo bixi lahaa iyo kiradii guryaha 3daas bilood iyo bishii aad iga maqnayd kiradeedii iyo biilkeedii miyii sidaa ma sidid waa kuu sidaa gacanta igu soo shub gacantii u taagata halkaas ku soo rito maca salaamaytir madaxaygana ii yeeri waa furay lacagteedii wixeedii ka qaadatay raganimo la iga dheh diracnimay samaysay reerkii kalama duminin gabadhii kale stress ma ayna gelinin asagii inuu ka xiisa dhacana way aragtay wixiisoo dhan waa soo duuduubtay madaxay u saartay cad noolna way ahaydoo waxeedii waa ka ridatay ee xaqa u lehed hadda xaqna waa u lehedo asagaa soo doonta soo maaha xaqeediina waa ka qaadatay reerkii kalena ma duminin isagana dhibaato kale sooma gaarin gabadhii iyo carruurteediina balanbal iyo hoog kuma dhicin stress iyo ma ay gelinin aaminkeedii ma uusan dhumin sidii reerkeeda ay u dhaqanaysaa ninkan inuu naa kala guursadayba ma oga inay siday shala keli u eed ay keli ugu tahay og tahay hadde sheekadaasaan rabay inaan idinla wadaago oo aan qarin waayo gabar walaal ah ay ila soo wadaagtay waana qiso dhab ah oo dhacday marka waxaan siri adoon asxaabtaada sheekadaas u sheegin ha ka aamusin yaanay dhicin inaadan u sheegin sheekadaasaan rabay asxaaba inaan idinla wadaago ninkii marka waxaa ka dhacday nin ugaarsanaayo isna la ugaarsanaya ka dhacday isagaa wuxuu islahaa aad reera badsatid hadhowna saad doonta aad ka yeeshidoo gabadhaan intuu sigsaaga ka tegay tiisii horena aan wax u sheegin isagii wax ugaarsanaya gurigiisay ka dhex bilaabatay gurigiisa laga dhex ugaarsaday ma fahamte marka sheekadii asxaaba intaasay ku eg tahay inteeni hore noola sii joogtay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin inta dambe nagu soo biiri doontana idinkana waa mahadsantihiin soo dhawaada wixii saboot ahna idinka xaggiinaan ka sugaynaa iyo barbar istaag intii hore oon idinku haysanana waa ku mahadsantihiin aad iyo aadaan maaragta idinkugu mahad celinaya tan iyo intaan barnaamijkan mid lamida asxaabay aan ku kulmi doono waxaan rabaa inaan idinkaga tago nabaadiinada ee baha ahaata korkiina nabad iyo caano assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu